iyo kuman daraawiisha iyo kuman darbada weerarka iyo badisa duulaanka kuman dabada joogto ku filan dollarka iyo maalka inagoo ku sii deyn karay ina dul joogaane inaan dabacnay waa laga ogyahay dunida qaarkeeda aan cadceedu ina diirinayn duhur dharaareede maandirida geeridu marbay darajo keentaay calanka buluuga ah ee shanta xidigood leh ee aad aragtaan bay ku abtirsadaan wax kale oo ay ku abtirsadaan ma jirto ninka gobolka Sool iyo Sanaag iyo Cayn degani taasuu ku abtirsanaya ha ku abshiro iyo Sanaag iyo Cayn dad baale waa u tashadeen Muuse Bixiye kahaniya waxay wataan kireysana waa laga saarayaa wiilashiina maalin walba waa ognahay waa abaskuul meel la wada joogo iskuma seegane la duubaya baabuurta la saaraya la haaro soo kaxaysta haddii kale tacsidooda uun baad arki doontaa kulan warbaahineed maanta ay ku qabteen magaalada Buuhoodle Cuqaasha iyo waxgaradka ay aqoonyahanka magaalada Buuhoodle ayay jawaab adag ugu direen hadal shalay ka soo yeeray Cuqaal iyo waxgarad ka hadlay tuulada Qorlugud oo ka tirsan gobolka Cayn waxay waxgaradka Buuhoodle ugu baaqeen bulshada ku nool deegaanada Coodanle iyo Qorlugud inay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo daris wanaaga isla markaana ay ka waantoobaan inay xilligan colaad mar kale horiyaan iyadoo ay sheegeen waxgaradka Buuhoodle inaanay ka faa'iidin colaadii hore uga dhacday deegaanka taas oo sabab ahayd deegaanka Kalshaale waxgaradka Buuhoodle waxay sidoo kale wax laga xumaada ku tilmaameen in hadalada ilqaafa loo geysto isimada dhaqanka deegaanka Buuhoodle ugu horeeyo qarad Cabdirasaaq Qaraasoofa Duraan oo isagoo xilligaasi hormuud u ahaa shirkii ka dhacay deegaanka Coodanle lagu heshiisiinayay beelaha dega Qorlugud iyo Buuhoodle waxay waxgaradkani ay sheegeen in si weyn looga shaqeeyo nabadgelyada lana ilaaliyo daris wanaaga kale odayaasha iyo waxgaradka Buuhoodle waxay si weyn u soo dhaweeyeen shirka haatan uga soconaya magaalada Laascaanood beelaha gobolada Sool Sanaag iyo Cayn kaasina waxa weeyaan waa halgan barakaysan midhihiisi gacanta ayaad ku haysaan waxa la rabaa inuu halkaas waxa weeye uu ka sii socdo mid kalena waxaan idin sheegayaa halganka gabigiisaba waxa uu wax ku salaysan yahay mabda'a bilaabnayna waxa weeyaan waxa uu leeyahay yool meel uu ka bilaabmo iyo meel uu ku dhamaado meesha uu ka bilaabmay waxay ahayd dulmigii iyo jawrkii ay geysteen ciidamadaas maamulkaas Soomaalidiidka ah ee uu hogaamiyaha u yahay Korneyl Muuse Biixi waxaan leenahay haddaan taariikhda dib idinku celiyo 19 Burco ay qoladan SNM ay tiraahdo goon istaag baa lagu saxeexay goon istaag laguma saxeexina xasab iyo jujuub baa lagu saxeexay maanta waxaan leenahay dhalinta kacdoonka ee maanta gobolka Sool fadhida waxaan leenahay teenana maanta haddii Ilaahay fadligiisa 13 isim ama 14 isim ay maanta joogaan gobolka Sool sidii ay Burco xasabka ugu saxeexeen in ay Soomaaliya ka go'aan ayaa la rabaa maanta inay xasab ay ku saxeexaan maamulka Sool Sanaag iyo Cayn oo ah maamul goboleed Soomaaliyeed oo waxa weeyaan jira taas la rabaa annaguna waxa weeyaan Sool Sanaag iyo Cayn waa maamul goboleed jira ummadda Soomaaliyeed kamida kamana mid ah SNM dhulkuna inooma qaybsana waxa weeyaan ma jirto hal magaalo oo Sool iyo Sanaag iyo Cayn ka tirsan oo ku abtirsan kartaa maamulka SNM ee Muuse Biixi madaxda ka yahay qodobka labaad haddaan ka gudbo marka ugu horeysa deegaanka magaalada Buuhoodle waa Caynina waa Buuhoodle waxaan maqlaynay oo dhagahayaga ku soo baxay dad aan shacaba oo garaacaya quraanka gargaraac qabyaaladeysan beelaha iyo dadka shacabka ah ee raacatada ahina uma taala hawlahaasi maanta waxay ka dhaxeeyaan jabhadaha SSC ee xaquudirirka ah ee iska dulqaadaya maleeshiyada Muuse Biixi ee magaalada Laascaanood iyo aaga kale ku jooga dulmigana ka geystay haddana wali doonaya inay ka sii geystaan taasay u dhaxaysaa laakiin dadka shacabka ah ee dariska ah ee wada dhashay ee od wadaagta ah ee biyaha iyo dabka kala qaata waxa weeyaan uma taalo cidii maanta shacaba ee gargaraacaysa ee aanu ognahay in Hargeysa laga soo ololeynayo ama Hargeysa laga keenayo kharashaadka iyo duulaanada la doonayo in shacabka dadka shacabka ah waxa weeyaan la isku basbaasiyo
dagaal shacab oo waxa weeyaan dhigmaydhana uu dhaco waan uga digaynaa dadkaas dadka shacabkii ma khuseeyo nin dirays wata oo ama jabhada ama maleeshiya dawlad sheeganaysa ayaa dagaaladaasi u dhaxeeyaan xadka u dhaxaysa beelaha gobolka Sool Sanaag iyo Cayn dega ilaa Ceeri Gaabo iyo Buuhoodle waa 517 kiiloomitir weeye 517 kiiloomitir waxaa loo baahan yahay dadka shacabkii inay nabadgelyana ku noolaadaan xoolahoodana daaqsadaan waxyaalaha u dhaxeeya maamulada hadday tahay jabhadaha xaqudirarka SSC ama hadday tahay maleeshiyaadka uu haysto Muuse Biixi waa inaanay ku milmin ninkii maanta shacaba ee arrimaha ku milmaana waxa weeyaan wuxuu noqonayaa nin dagaal ahliya oo horay u soo dhacay faa'iidana aan laga qaadin waxa weeyaan nin gargaraacaya ayuu u ekaanaya waxa inta qodobka saddexaad ii yahay gobolka Sool iyo Sanaag iyo Cayn waa Soomaali 34 sano ayaa Soomaaliland nimanka sheeganaya waxay lahayn Soomaaliya waa ka go'an gobolka Sool iyo Sanaag iyo Cayn Soomaaliya kama go'ine calanka buluuga ah ee shanta xidigood leh ee aad aragtaan bay ku abtirsadaan wax kale oo ay ku abtirsadaan ma jirto ninka gobolka Sool iyo Sanaag iyo Cayn degani taasuu ku abtirsanaya ha ku abshiro wax kale oo abtirsiinya ah oo Sool iyo Sanaag iyo Cayn ay leedahay oo aan calanka buluuga ee shanta geestu ku taala aan ahayn ninkii sheegtaa waxa weeyaan martibu ku noqonaya Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxaanu leenahay oo isimada u sheegana iyo wax garadka fadhiya Sool maanta aad ka talinta dhulbahantay Sool iyo Sanaag iyo Cayn midho dhal baa laga rabaa dawlad baa laga rabaa waxa laga rabaa maamul federaalka hoos taga Sool iyo Sanaag iyo Cayn ay iska leedahay oo garab dega maamulada geesaha xiga midka looga fadhiyo waa midka waa nacasna loo sheegi maayo nirigana waa ogyahay weeye garad jaamac arrintaas sidaa weeye waanu isbogaadinanaa isagoo anqarsan oo dhalanaya yaa muuqda faariisi kanaxu naftawa kaas waa qodobka hadabadiisa ay u taagan yihiin ka dhaxalayaano shacabka ahaanu dariska nahayo war waxa dan idinkuma jirto waxa laale horay baad u ilduufteeno 2011 dagaalkii ahabaad ku ilduufteen maanta ay ilduufina idinka fidiyo la idin soo jooray maalinta war maantana yaa la idin soo marin sidii maaha SSC Sool iyo Sanaag iyo Cayn sidii maaha ciidan iyo calaf iyo qalab iyo rag midna sidii maaha iyo tababar way ka tayarun yihiin sidii waxaan idin leenahay way idin saameynaysaa dad wacan baad ahaydeen oo darisnimada ogole ilduuf baad ka taqaaneen ilduufka iska ilaaliya dadkaas idinka dhaxalaya idinka dhaxbaxaan Sool iyo Sanaag iyo Cayn dad baalo waa u tashadeen Muuse Biixi iyo kahaniya waxay wateen kireysana waa laga saarayaa wiilashiina maalin walba waa ognahay waa abaskuul meel la wada joogo iskuma seegane la duubaya baabuurta la saaraya la haaro soo kaxaysta haddii kale tacsidooda uun baad arki doontaan oo digi doontaan waa Soomaali dhimanaysa waxaan leenahay u yeedha intaas idin la gudboon idinkuna nabadgeliyo iyo kaakicin la'aan iyo xajin la'aan dalka ku joogaan ku wada joogno waxa raaca qodob ay ka hadasheen inana soo xigeen dariska nahay Caynaba iyo qorugudo way hadlayeen odayaal hadlayaan arkay in wax dheeraad idin yihiin oo dahdabadiisa idin taagan yahay idinkoo dadka xuduud la leh oo ku dhex jira waan arkayo waa daawanay gobolka Cayn waa sheegteen hasha nin kale baa magac ula baxday magac anaga bixina aynu xisku leeyahay anaga ale tan anaga ale taa degantahay anaga ale waxaad ku degteen oo ku wada degnay calanka buluuga kaasana ku wada degnay hadaad ka ku wada joogi weydaan xadka dhulbahante iyo isaaq beerbo aha gaatama daamri doonta beerbo sida hadaad meeshaad ku wadaad ka dayn weydo oo Soomaalinimada inay ku wada degnay calanka buluuga aad qaadan wado ila qaadan weydo oo aad maamulkeena dhisana wax ka dhisan weydo kaasa dhabe waxa weeye waxaad daba mari doontaa meeshii Ingiriisku ku calaamadiyay Ingiriiska ma xisab jeceshahay kaasaad aaminsan Ilaahay ma aaminsan iyo Soomaalinimada kaasaad daba mari doontaa waxaan shalay maqlaynay
nin si gaara wax lay u aflagaadeynaya garaad cabdirasaaq garaad soofe garaad cabdirasaaq garaad soofe marka hore horta waa garaadka gobolka Cayn wuxuuna ka mid yahay garaadada gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxaan leenahay ninka shalay aflagaadeynayo ee maartay ku sheegaya taliye ciidanow hadda shalay bay ahayd markii wax la yiraahdo uu maartay nabadii coodan la xurayay ee nabadgelyo dhulbahanta kaaga raadinayay ee dhulbahanta uu maartay wax la jilib salaaxayay sidii nabadgelyo u qaataan shalay ayay ahayd waxaan leenahay ha iloobina ha halmaamina umulyaan la noqonin umusha wax la yiraahdo wixii shalay soo maray halmaantee umulyaan la noqonin waxa kale oo maartay ninka isaga hay taabtay ciidamada wax la yiraahdo SSC la yiraahdo ee uu haysto ninka la yiraahdo Cabdimadoobe waxaan u sheegaynaa ciidamo garaad cabdirasaaq samaystay ma aha waa ciidamo ay samaysteen dadka gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn una samaysteen inay ku xoreystaan wadankooda kagana xoreystaan SLM waxaan leenahay dadka shacabka ah ee dariska aanu nahay ee islaamnimadu naga dhaxayso ee ehelnimadu naga dhaxayso colaadiina ma rabno waxa weeye ragga aflagaadeynaya isimada arab garaad cabdirasaaq waa aabihii nabadda aasaasay weeye ee qurlugud nabadda ku xidhay garaad cabdiqanina la mid buu ahaa isagana waad ogeydeen colaadii isaaq oo dhan buu soo afjaray marka in la aflagaadeeyo horta meesha kuma jirto waxa kale oo meesha taala waxa weeye tuulooyinkan deriska ah in wax lagu soo shubto oo ay dadka xamaasad iyo maxaan ku ilaahay dhex keenaan anagu horta raali kama dhigin cidna aflagaadeyn min cidna caaymayn waxaan say idin sheegaynaa sidii ninka horeba u hadlay halkan waxa taala Sool iyo Sanaag iyo Cayn saddexdaas isdeed weeye waana isku reer SSC baa la yiraahdaa maantana waxay go'aan ku gaadheen inay soo ceshadaan masiirkooda cid xukuuman saaran ma jirto cid maxaan ku ilaahay laga daba fadhiisanayana ma jirto ninkii isla arinta waxbaad ka bedeli karaysaa gurigaaga yar ee aad joogto iyo tuulooyinkaaga iyo meesha aad joogto adeerow ciidaha isku gelinayo yaan dhibi ku soo gaarine qof shacab iska ahaw anigu kaliya SSC ahaa baan tiri SNM dawlad ma aha ee muxuu inaga soo doona dalsanka iyo dooxooyinkii daadku mulcayeeyay muxuu ugu dangiigsaday intuu waliba doonyeystay daafaha nugaaleed muxuu damac u gaarsiiyay ودنيا ugu sheegaya darajadu gaaray hadaanay in daynahay nimanka soo duulay inagu badal waan haysanaa inagu badab waa haysanaa iyo dabaabaade kuma duusha kuma dirirta iyo kuma daraawiisha iyo kuma darbada weerarka iyo badisa duulaanka kuma dabada joogto ku filan dollarka iyo maalka inagoo ku sii deyn karay in dul joogaane in dabacnay waa laga ogyahay dunida qaarkeede aan cadceedu ina diirinayn duhur dharaareede maandirida geeridu mar bay darajo keentaay salaam